dhexeysa tasaddexaad muslimnima naga dhexeysa anagu si kasta waan isku dhex jirnaa aniga iyo Soomaali ma aragtay oo waxa inta leeg oo Soomaaliya iyo Itoobiya say isku haysan ani ma garanayo laakiin waxaan hadda ka hadlaya anigu dawladda maaha anigu shacabka la midahay anigu shacabban la midahay wax ma hoogani ma hukumi karo wax ma dajin karo wax ma kor u qaadi karo waxaad ogaatiin in dadka Itoobiya Soomaali dagaalka ka rabin wuxuu qasabka idin qaadanayo ma jirto biyaha idin ba iskale haddaad ra'iiska Itoobiya la heshiisaan idin ba xor leh haddaad ra'iiska Itoobiya diidaan idin ba xor leh biyaha waxa qasabka idin qaadaya ma jirto anaga walaaltinimo naga dhaxeeya waxaas inta leega xun oo waxa naga dhaysa ma jirto anagu muslim baan ahay Soomaaliya Oromo biyaha iyo kalluun meel kala tagin male anu waxa rajeenaya in ma aragtay oo isfahamno oo isla soconno haddaan heshiino oo biyaha idinka kireysano haddaan isdiino inaan biyaha faraha qaadno waxa dhibaato ma jirto waxa inta leeg ma aragtay oo mashaakil iyo problem inta leeg keenis ma jirto idinka Soomaali xurbaad leedin wadan baa leedin Itoobiya xurba leeyin wadan baa leeyin heshiis hadduu naga dhaxeeyo waan isla socon karnaa hadda heshiin la'aan nahay waan faraha kala qaadi karnaa ma fahamteen anu waxaan hadda u jeeda dadka masaakiinta oo dadka muslimka oo Soomaali jooga walaaltinimo faraha qaada masaakiinta hadilina masaakiinta ha azabina koydin la joogo waa ku hishabsanayay oo eeshiyo maaragtay untada doonayo weeyaan laakiin wadanka Itoobiya Soomaalina waa taf dadka shaqaysanaya Soomaalina Itoobiya waa naga buuxaan dadka Soomaali oo Itoobiya dhex joogo anagu sidii walaaltinimo oo madaxa noo saaran yahay madax wadankeena waxay doonaan ku shaqaysan karaan waxay doonay ku aabi karaan waxay doonay ku sameeysan karaan anagu waxa hal maalin oo dadka Itoobiya Soomaali eegaysi ma arag waligan anagu ma sameeyno madam anagu charbana waan isku dhawnaay biyihi dawladda hadday shiyeen iyada kugu jirta dawladda hadday isdiidaan iyaga kugu jirta marka anagu shacab inaan faraha ka qaano kulliga wadanka Soomaali gabigi waa dadka muslim waa wada muslim madaga muslimta haram iyo halal si fiican bay ku garanaysaa marka qofka masaakiinta la cadabeeyay dunya la aakhira cadaab la tagaya waad garanaysiin taas waa taqaanin anigu hadda waxaan u jeedo qofka bali aadam anagu shacabka masaakiin baanay hadda ra'iiskeen hadda wax samaysan jelba ku geenaya jelba kugu tagaya waxba xoog ma haysin gacantaada maxaa والله العظيم قف بلي عدم anagu wax badan baa naga dhiman wax